Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Wardon Academy iyo koorsada luqadda Boortaqiiska. Waa casharka 79aad wuxuuna daba socdaa kii ka horreeyey ee aan uga hadlaynay como agenda uma casa, sida guri loo kiraysto. Ereyada ama erebixinta iyo jumladaha munaasibka ah ee loo adeegsado marka aad guri kiraysanayso. Como agenda uma casa. Casharkii u dambeeyey wuxuu noo marayay a minha casa tem 2 andares. No primeiro andar tem uma cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar e um banheiro. Guriga wuxuu ka kooban yahay 2 dabaq. Dabaqa koowaadna waxaa ku yaala cozinha, jiko, uma sala de estar, fadhi, uma sala de jantar, sidoo kale lagu qadeeyo, e um banheiro iyo musqul. No segundo andar, dabaqa labaad, no segundo andar, dabaqa labaad tem 2 quartos, 2 qol ayaa ku taala, 2 qol ayuu leeyahay. No segundo andar, dabaqa labaadna tem 2 quartos, 2 qol ayaa ku taala, 2 qol uu leeyahay. Tem 2 quartos, um quarto principal e um quarto de hóspedes. Tem 2 quartos, 2 qol ayaa ku taala, um quarto principal, suite la qol iyo musqul. Um quarto principal marka waa suite ama qol musqushiisa wata. E um quarto de hóspedes iyo qolka martida. Hóspedes waa marti. Um quarto de hóspedes. Guest house waa, guest room, qol loogu talagalay martida waa. Tem uma garagem bem grande na minha casa. Guriga garage weyn ayuu leeyahay. Tem uma garagem bem grande. Wuxuu leeyahay garage aad u weyn. Na minha casa, guriga waxaa ku yaal garage aad u weyn. Tem várias janelas. Daaqado badan ayuu leeyahay, 2 daaqadood. Tem um porão, waxaa la yidhahdaa porão. Basement uu leeyahay ama underground, qayb hoose oo dhulka hoostiisa waayo, guriga ka tirsan. Porão marka taas la yidhaha ama basement. Tem várias coisas no porão. Waxyaabo badan ayaana yaaliin qaybta hoose ee dhulka ee guriga. Tem várias coisas. Waxyaabo badan ayaa yaaliin no porão, qaybta hoose ee guriga ama dhulka hoostiisa, undergroundka. Tem um grande quintal na minha casa. Guriga daarad weyn ayuu leeyahay. Tem um grande quintal, daarad weyn waay. Na minha casa, guriga daarad weyn uu leeyahay. Quantas janelas tem na sua casa? Quantas janelas, meeqa daaqad tem na sua casa? Guriga meeqa daaqad uu leeyahay. Tem 15 janelas na minha casa. 15 daaqad ayuu leeyahay guriga. Tem 15 janelas na minha casa. 15 daaqad ayuu leeyahay. Tem uma piscina na sua casa. Guriga baraag ma uu leeyahay, baraagta dabaasha, marka lagu dabaasho. Tem uma piscina na tua casa. Guriga na sua casa. Guriga uma leeyahay meel lagu dabaasho. Tem uma garagem na sua casa. Guriga garage ma leeyahay. Meelaha alaabada iyo la dhigto garage waa sidaas. Garashka baabuurta iyo ma laga wado markaan. Garashka guryaha qayb ka tirsan guriga oo inta badan ka go'an oo wixii la rabo lagu kaydsado alaabada ayuu leeyahay. Tem wala tusaale motor oo kale guriga duu leeyahay meel la dhigto raba ana guriga dhexdiisa lagu mahay karo waa inuu garage leeyahay ama qayb ka go'an guriga oo garashka iyo waxyaabo la midka haanta biyaha tangiga ama meelaha biyaha lagu shubto waxyaabo la midka. Marka tem uma garagem na sua casa. Guriga ma leeyahay garage? Sim, tem 2 janelas na minha casa. Sim, tem 2 janelas na minha casa. Guriga 2 daaqad. Ok. Tem janelas na sua garagem, né? Garagekaagu daaqado ma leeyahay? Tem janelas, daaqado ma leeyahay na sua garagem? Garagekaaga daaqado ma leeyahay? Sim, tem 2 janelas, 2 daaqad ayuu leeyahay. A minha garagem, guriga 2 daaqad ayuu garagekaygu leeyahay. Tem um banheiro na garagem. Garageka sidoo kale musqul ma leeyahay? Não tem banheiro na garagem. Garageka ma lahan musqul. De que cores são as paredes da sua casa? De que cores são as paredes? Que cor? Waa kalarkee? São as paredes, derbiyada na sua casa. Guriga derbiyiisu waa kalarkee?
De que cores são as paredes da sua casa? Paredes são amarelas. Jaale waaye derbiyadu. Paredes, derbiyadu são amarelas. Waa jaale. Eu arrendo uma casa para duas famílias. Eu arrendo, waxaan kireynayaa uma casa para duas famílias. Guri weyn waaye oo laba qoys loogu talagalay. Uma casa para duas famílias. Eu moro no andar de cima. Eu moro, waxaan ku noolahay. Eu moro, waxaan ku noolahay no andar de cima. Ergaas moro ayaa lagu dhawaaqayaa. Moru haddii la ra' kale lagu daran dhimashay noqonaysaa. Marka more iyo mora ay kala yihiin. Mora aad lagu dhawaaqo maarada la muujimayo markay tahay meel lagu nool yahay kale ama la degan yahay. Laakiin morre ama morre haddii la yiraahdo moxe ama morre waa dhimasho. Dad badan isku qalda oo markay dhimashada inay sheegaan rabaan hataa more dhahan more qalad waaye. Morre waaye waa laba ra' waaye. Marka eu moro no andar de cima. Dabaqa sare ayaan nagu deganahay. E o meu irmão walaalkayna mora wuxuu ku nool yahay no andar de baixo. Dabaqa hoose. Qaybta hoose ayuu ku nool yahay. Tem uma sacada ama varanda na sua casa. Guriga baranda ma leeyahay. Varanda iyo sacada waa isku mid. Sacada iyo varanda isku mid na sua casa. Guriga ma leeyahay daarad. Tem uma cerca na sua casa. Cerca ma leeyahay ku wareegsan tahay fiilooyinka kale mar guriga lagu wareejiyo kale fiilooyin korontada iyo waxyaabo la midka cerca taas leedahay. Tem uma cerca na sua casa. Guriga ma leeyahay marka fiilooyin ku wareegsan yihiin fiilooyinka amniga loogu talagalo waa tuugada looga ilaalinta badan koronto iyo waxba lagu xiraa. Uma cerca marka taas waa. Tem uma cerca na sua casa. Tem elevador no seu prédio. Tem elevador, wish ma leeyahay no seu prédio. Dabaqaaga wish ma leeyahay. Elevador é wish leeyahay no seu prédio, no waa dabaq. Não, maya, não tem elevador. Dabaq ma lahan. Porque só tem dois andares. Sababtoo laba dabaq ayuu ka kooban yahay. Waxaa guriga dhismahayga prédio waxaan dhihi karnaa dhismo waaye. Andar laakiin waa dabaqyada. Dabaq koowaad, labaad, saddexaad. Laakiin guriga oo dhan prédio waaye marka. Soomaaliland dabaq ayaa la wadiraa wax kasta laakiin qaybna dabaq waaye. Guriga oo dhan dhismaha oo dhan marka prédio waaye. Laakiin qayb kastoo ka mid ah waa waxa waaye andar waaye. Não tem elevador. Não, maya, não tem elevador. Ma lahan wish. Porque só tem dois andares. Laba dabaq ayuu ka kooban yahaaba. Ma loo baahna macnaha. Como é a sua vizinhança? Waa sidee meelaha kuu dhow dariskaaga ama meelaha kuu dhow waa sidee? Como é a sua vizinhança? Waa sidee meelaha kuu dhow ama dariskaaga? Vizinhos waa daris. Vizinhança waa dariska waxyaabaa kula ah. Como é a sua vizinhança? Vizinhança marka waa sidaas. É segura? Amni miya? É perigosa? Halis miya? É calma? Ma degan tahay? É agitada? aad miyay u kacsan tahay? su'aal marka laga dhigo marka sidaas oo calaamad su'aal raacinaya. Haddii calaamad su'aalada laga saarana saas waaye. É segura waa amni. É perigosa waa halis. É calma waa degan tahay. É agitada way kacsan tahay. Meelaha buuqa badan oo inta badan qaylada iyo badan agitada la yiraahdo. Macnaha meel aad u kacsan oo inta badan buuq iyo foodo ka dhacdo waa agitada. Calma meel aad u degan. Perigosa meel halis oo tuuga iyo inilada laga yaabo. Segura meel amni ah oo booliska ama kaaga dhow yihiin wixii la mid ah. Marka aad u fudud yahay. Hal mar oo bobsiisa aan insha Allah soo kormaraya. No segundo andar tem dois quartos. Tem dois quartos, um quarto principal, suíte, e um quarto de hóspedes. Tem uma garagem bem grande na minha casa. Tem várias janelas. Tem um borrão. Tem várias coisas no borrão. Tem um grande quintal na minha casa. Quantas janelas tem a sua casa? Tem 15 janelas na minha casa. Tem uma piscina na sua casa. Tem uma garagem na sua casa. Tem janelas na sua garagem. Sim, tem 2 janelas na minha garagem. Tem um banheiro na sua garagem. Tem um banheiro na garagem? Não, não tem banheiro na garagem. De que cores são as paredes de sua casa? Paredes são amareladas. Paredes são amarelas. Eu arrendo uma casa para 2 famílias. Eu arrendo uma casa para 2 famílias. Eu moro no andar de cima e o meu irmão mora no andar de baixo. Tem sacada, varanda na sua casa? Tem uma cerca na sua casa?
Tem elevador no seu prédio? Não, não tem elevador, porque só tem 2 andares. Como é a sua vizinhança? Vizinho ou adresca? Vizinhança. Não é melhor adresca que a vizinhança. Lakin vizinho era aquele a dar adresso. Vizinha a de mulher naktai. A dunia é vizinho. Ele é meu vizinho, a sua adresca. Ela é a minha vizinha. Ela é minha vizinha. É do adresca. Marca vizinhança, lakin o mera udo agar que agdo é manaha deganka. Dado que adresco lá é segura, é perigosa, é calma, é agitada. هذه أضيفه دي هاي لكن مهم ويا عشر كان وقد ما تسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.